ururka u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee ugu weyn wadanka Mareykanka iyo gabadha u dhalay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray isku day gabar muslim ah oo ka soo jeeda wadankaasi Soomaaliya ay ku doonayso in wax looga bedelo sharci muddo dheer ka jiray aqalka wakiilada ee wadanka Mareykanka sharcigaasi oo ah in madaxa la daboolan karin ama masar lagu xulan karin gudaha aqalkaasi Kongareeska Ilhaan Cumar oo ah gabar qaxoonti ah oo Soomaaliya ka timi isla markaana dhawaan loo doortay xubinimada aqalka wakiilada ee Kongareeska wadanka Mareykanka ayaa ku biirtay olole ay hogaamiyayaasha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayaan in wax looga bedelo xeer uu aqalkaasi ku soo dhaqmayay muddo 181 sanadood arrintan ayay siyaasiyiinta xisbigaasi ku damacsan yihiin in golaha wakiilada loogu fasaxo qodobada lala xiriirinayo diimaha arrintan ayay siyaasiyiinta xisbigaasi ku damacsan yihiin in golaha wakiilada loogu fasaxo qodobada la xiriira diimaha ama daboolida madaxa sida xijaabka muslimiinta koofiyada yuhuudda iyo waliba duubka isbedeladan ayaa qayb ka ah qodobo ay soo bandhigeen mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga dimuqraadiga oo ay ka mid tahay hogaamiyaha laga tirada badan yahay aqalka wakiilada Nancy Pelosi bisha Janaayo ee sanadka fooda inagu soo haya ayaa la filayaa in la ansixiyo qodobadaasi marka ay dimuqraadigu si rasmi ah ula wareegaan aqlabiyadda aqalka Kongareeska ee wadankaasi Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada waxa ay ku tiri ma jirto cid igu khasbaysa inaan madaxayga xijaab ku daboolo laakiin aniga ayaa doortay waana dookhayga waana arrinta ugu horeysa ee isbedelka lagu samaynayo qoraalkeeda ayay sii raacisay tanina ma aha wixii ugu dambeeyay ee aan doonayo inaan xayiraadda ka qaado isku daygan ayaa hantay taageerada ururka xiriirka Mareykanka muslimiinta Nihada wado agaasimaha guud ee ururkaasi waxa uu yiri waxaan taageersanaa dadaalka lagu doonayo isbedelka xeerarka aqalka waxaana soo dhaweynayaa in golaha wakiilada uu noqdo meel si xornimo ah loogu dhaqmo diimaha arrinka waxaa sidoo kale u riyaaqay gabadha u dhalay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump gabadhaas oo lagu magacaabo Ivanka Trump gabadha u dhalay madaxweynaha wadanka Mareykanka oo lagu magacaabo Ivanka Trump qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay waxay ku tiri isbedel sharci oo muhiim ah ayaa lagu sameyn doonaa aqalka Kongareeska marka 3 bisha Janaayo uu furmo kalfadhiga aqalka Kongareeska ee 116 ayaa waxa kuraasta ka soo muuqan doona tiradii ugu badnayd oo haweenay iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan dadka ku hadla luqadda Isbaanishka Mareykanka madow dadka Mareykanka ee asalka iyo xubno ka tirsan dadka isku jinsiga ah ee isguursada iyo waliba kuwa labeebka Jim Coven oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inuu shirgudoomiyo golahaasi sharciyada ku saabsan daboolista madaxa ama madax saarashada ayaan waxtar u ahaan doonin xildhibaanada qaarkood sida haweeneyda lagu magacaabo Federica Wilson oo caan ku ah inay xulato koofiyado midabo kala duwan leh horeyna dadaal dheer ugu jirtay in aqalka laga qaado mamnuucista in madaxa la daboolo maadaama koofiyada aysan diin la xiriirin Wilson ayay weli mamnuuc ka ahaan doontaa inay koofiyad ku xirato golaha Kongareeska dhexdiisa Saciid Ahmed Tamreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star